waxaan ku xasuusin on kula wadaagayaa xadiis uu nabiga sallallahu alayhi wasallam amray inuu barto qof kasta oo murugaysan oo dareemaya walwal iyo walbahaar uuna akhrista kana dhigta adkaartiisa joogtada ah. Ilaahay baan ku dhaartay xadiiskan qofkii Ilaahay ku barya ducadan isagoo yaqiinsan aaminsan sawiranayo inuu Ilaahay siinayo wuxuu ka baryayo Allah jalla wa ala, wuxuu qalbigiisa ka saarayaa walwalka, wuxuu qalbigiisa ka saarayaa murugada walbahaarka ciriiriga uu dareemayo, wuxuu ka dhigayaa kan ugu farxadda badan makhluuqu Ilaahay abuuray xitaa haday noloshiisu hareeraysay dhibaatooyin. Waayo adduunka marna ma ahan daar lagu raaxaysto, waa daar tacab, dhibaato, murugo aad la kulmayso. Duniduna waxay raadinaysaa maanta oo kumanaan kun oo daawo ah loo soo saarayaa sida dadka la ildaran murugada walwalka loogu heli lahaa xal, iyadoo weliba dawooyinkaas ay leeyihiin kumanaan kun oo side effects ah, laakiin adigu uu Ilaahay Azza wa Jalla ka siiyay meel dhow. Ducaduna waxay u muuqataa inay dheer tahay, laakiin markaad u baratid oo aad fahantid oo aad yaqiinsatid oo ay ku noqoto dawadaada joogtada ah, waxay ku noqon doontaa adigoo akhrisanaya sida alxamdulillahi rabbil alamin oo kale. Ducadana waa Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik maadin fiya hukmuk adlun fiya qida'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-qayb 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dahaba hammi. Ducadan micnaheedu yahay Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik maadin fiya hukmuk adlun fiya qida'uk. Ilaahayow adoonkaagi baan ahay, adoonkaaga adoonkiisii baan ahay, adoontaadii ilmaheedii baan ahay, foodaydu ama amarkaygu gacantaaday ku jirtaa, xukunkaada ayaa igu dhacaya, wixii aad ii qadartayna oo aad ii qortay cadaalad weeyaan, ima aadan dulmin marna. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Magac kasta aad leedahay ayaan kugu weydiisanayaa, ama aad naftaada ku magacowday, ama kitaabka dhexdiisa aad ku soo dejisay, ama axad khalqigaaga ka mid ah aad bartay, ama adiga cilmiga qaybka aad gooni ka dhigatay oo aadan cidna u sheegin. Ilaahay magacyadiisu way badan yihiin, asmaadaada oo dhan ayaa waxaan kugu weydiisanayaa an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, in aad Qur'aanka ka dhigto nuurka laabtayda iyo rabiica qalbigayga, wa nuura sadri wa jalaa'a huzni wa dahaba hammi, iyo midka tirtira murugta qalbigayga iyo midka hammigayga tagsiya. Ilaahow ka dhig markaad ku ducaysato ducadan, Ilaahay qalbigaaga wuu ku dejinayaa xasilooni iyo qalbi degan iyo sacaado ayuu Ilaahay ku dabaalinayaa oo ku siinayaa. Balse waxaa shardi ah inaad yaqiin dhab ah aad rabbiga ku qabtid mar walba aad murug ku soo wajahdo adduunkana ama maalintaada nolol maalmeedkaaga caadiga aad wax ka walwashid ay tahay inaad akhrisatid. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aniga iyo idinkaba qalbigiina nuurun calaa nuur allaha ka dhigo. Waxaan idinka tegayaa dhammaantiin fi amaanillah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.